waxay soo gabagabaysay nolosha mid ka mid ah feeryahanadii ugu caansanaa ee dunida soo mara waxa ay ahayd da'diisu 47 sano jir. allaha uu naxariistay maxamed cali waxa uu ku guulaystay ciyaaro iyo abaalmarino aad u badan laga bilaabo 12 jirkiisa ilaa uu ka fadhiistay feeryahannimada 1981kii. waxa uu ahaa aftahan iyo aqoon-yahan dadku ku baraarujiya nolosha iyo guusha. waxaan halkan ku soo koobayaa oraahyo qaali ah uu maxamed yidhi allaha uu naxariistee. u duul sida balambaalis, u qaniin sida shini, gacmahaagu waxba ma dili karaan haddaan innahaagu waxba arkeen. haddii maskaxdaydu sawiranayso adhin wadnahayguna rumaysan yahay waxaan xaqiijin karaa arrinkaasi. anigu ma ahi ka ugu weyn, waxa aan ahay kuwa waaweyn ka ugu weyn. anigu kama badiyo oo keliya, balse waxa aan doortaa xilliga aan ka badinayo. ha tirin maalmaha, iyaga ayaa istiranaya. kuma raaxaysto dagaalka, balse waxaan ku raaxaystaa guusha ka dambaysa. hadafkeegu waa in Maraykan noqdaa dal weyn. sidaa aawadeed ayaan ugu badiyaa Raashiyaanka iyo Balandeeska, Griiguna u yidhaahdaan adiga Cassius ka fiican. guriga waxa aan ahay nin fiican, ma jecli in adduunku ogaado. Cassius Clay waa magac addoon ah, aniguna ma dooran, mana rabin in la ii bixiyo. anigu magaceegu waa Maxamed Cali, magac xor ah. waa ku qasab ah in cid kasta kaasi ugu yeedho haddii ay ila hadlayaan iyo haddii ay iga hadlayaan. waa iimaan yaraan iyo kalsooni darro tan ka dhigta dadka in ay ka baqaan nolosha iyo waayaheeda. aniguna waan isku kalsoonnahay.